isaaqii dhulmaanta waxba ka dhaxayn maayaan waa kala guureen wax isku darsan maayaan Soomaaliya wax la ka shaqayn mayso dhulkan annaga idinle hadba meesha waa la kala guuray iska soo noqon maayo halka aniga wiil yar oo aan dhalay oo magaciisa la yiraahdo Nasruddin Ismaaciil magaciisa kale loo yaqaanayo Ruuxaanta ninkaas wuxuu ku dhashay meesha la Hargeysa inta ku leekaaday hooyadii waa gabadh Sacdi Yunis oo garxajisa halkaas ku barbaaray halkaas inta ku leekaaday dhulkan inta uu yimid waa wax yar oo kooban waa tiinikii muxuu ahaa in Cambaashe halkan isaga iyo deegaanka ay dagaal ku dhaxmaray waa tii waxa weeyaan u guuray dhinaca Tula Samakaab marka ninkaasi waxa weeyaan halkaas uu ka soo jeedaa meesha la yiraahdo dhinaca nimanka magaalada duqeynaya dagaalkuna waa laba mid waa afka midna waa gacanta dagaalka afka iyo ka gacanta labadaba waa ku jiraa wuxuu ka tirsan yahay oo ku jira nimanka hadda magaalada la soo dagaalamaya ee Somaliland ee uu hogaamiyo Mahad Cambaashe ciidankiisa xoogaa ku haray ee farkuturiska buu ka mid yahay ninkaasi waa nin dhalinyaro ah oo waa 20 jir ama waa 19 jir meelaha san maynaya waa nin u arkay waxa kan inay sax yihiin iyo inay khalad yihiin wuxuu arkay khaladkii buu qaatay waxaan leeyahay dadka ay dhibaso ee reer SSC iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wanaagga jecel waxaan leeyahay wiilka aniga dhalay hadduu 48 saacadood uu warka waayo saarana dhalashada waanu kala saaranaa tigara jaba weeyaan wiilka yar iyo kuwa la midka ah ee ku sii fikeraya inay dhiiga dalkooda iyo dadkooda daadiyaan waa la kala guuray la iskula soo noqon maayo dadkiina iyo dalkiina wax xun ka kasbanina dadkiina iyo dalkiina ku soo noqda isaaqii dhulmaanta waxba ka dhaxayn maayaan waa kala guureen wax isku darsan maayaan Soomaaliya wax la ka shaqayn mayso dhulkan annaga idinle haddaad ku farxsanay dad ka naxasaanba war meesha waa la kala guuray iska soo noqon maayo tiga wiilkayga halka dhigay nin kasto waxa weeyaan nin kasto ma garanaysaa dadka saameyn ku leena sidaas laga rabaa